waxaan maanta halkan muxuu ahaa hay'adda Save Children ay ku wareejin doontaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gaar ahaan kulliyadda tababarka macallimiinta gaadiidkii loogu talagalay tababarka macallimiinta inay fududeeyaan oo ay ka mid yihiin labada bas ee halkan ka muuqda iyo maad aragtay gaarigii ku shaqaynayay muxuu ahaa kulliyadda ay ku shaqaynaysay kulliyadda tababarka macallimiintu waxay gacanta ku haysaa barnaamij aad u miisaan culus oo ah tayeynta waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah ee waddanka waxayna ka bilowday sida siyaasadda qaranka iyo dawladdu ay tahay in la tayeeyo marka ugu horeysa macallimiinta dugsiyada aasaasiga wax ka dhiga ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dufcadoodii ugu horeysay wajigoogii labaad ay ku jiraan hadda kulliyadda oo ay waxbarashadii u socoto muddo 2 biloodana ay wadi doonaan oo hal bil hadda ay soo dhameysteen waxaan aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda Save Children iyo barnaamijkan GBE oo gacan weyn ka geystay suuragelinta hamiga dawladda ee ah in la tayeeyo waxbarashada iskuulada aasaasiga ah ee qaranka waxa hore ay hay'adani gacanta ugu hayso qayb ka ahayd iyadoo wasaaradda la wadaagta suuragelinta tababarkaasi 400 ee macallin ee imiga jooga iyo diyaarinta 400 ee macallin ee kale iyaguna soo gelaya waa 800 oo macallin sidii uu Cabdinaasir sheegay si taa loo suurageliyo kulliyaddu waxay bilow bay tahay aasaaskeygi iyo waxay ku jirtaa in dhidibada loo taago waxa ka ay u baahan tahay facilities fara badan waxa durba gacan fiican ka geystay mashruuca GBE-ga hore waxaynu ugu wareejinay kulliyadda ay noogu keeneen gaari laankurusal ah oo aynu ku shaqeyno qaybteeda maamulku wax badan noo fudeydiyay oo dhaqdhaqaaqii iyo tagtagidii kolba meelaha ay barnaamijyadu ka socdaan iyo waxaan u baahanay si fudud aan ugu tagnay aad baan ugu mahadnaqaynaa kulliyaddu waxay ku taallaa meel magaalada ka yara baxsan waxoogaa sida daraadeed imaatinkeygu markay noqoto 400 macallin ama 800 macallin way yara fog tahay waxayna u baahan tahay baabuur fara badan oo lagu soo daabulo macallimiintaasi subaxii maadaama aan wali boardingkii dhamaystirmin oo hawshiisii socotana in gelinka dambena lagu celiyo taasi si hawlahaasi wax looga qabto waxa saaka laynagu wareejinayaa 2 gaari oo basas ah oo kuwa waaweynaa ah oo wax badan ka tari doona soo guridda macallimiinta iyo celinta iyo adeegyada kale kulliyaddu ay fulin doonto marka ay meelaha kala duwan ee waddanka ay geynayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa qayb ka mid ah baahiyaha guud ee ay kulliyaddu kolba qayb daboolayso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan filaynaa labadan bas oo insha Allah aan noqon doonin kuwii ugu dambeeyay inay wax badan u tari doonaan inay kulliyadana si fiican ay u hana qaado ay shaqadeedu u bilowdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad baan salaamayaa dhammaan marti sharafta iyo baaqa saxaafadda assalaamu calaykum maanta halkan waxaynu u taaganahay inaynu kula wareegno labada bas ee mashruucan GBE-ga laga soo iibiyay oo baahi weyn kulli tababarkan kulliyadda tababarku ay u qabeen kulliyaddan tababarka macallimiintu qaranka waxay u leedahay ahmiyad aad u weyn sababtoo tayada markaynu dhinaca tayada eegayno waxa kow ka ah macalinka haddaan la tayin tababarkiisana aan la wadin oon kolba la joogtay in upgrading mar walba aanu helina waxay noqonaysaa in la taagnaanayo halkii ama laga hooseynayo marka wasaarad ahaan taasaan xoogga hadda saaraynaa in la tayeeyo macallimiinta dugsiyada asaasiga ah oo ah halka ay bayska ka soo bilaabmayso waxbarashadu haddii halkaasi ay adkaato inta kalena ilmuhu iswadi karaa waxa noo farxad ah maanta inaan halkan u joogno kulliyadda tababarka macallimiinta inaan ku wareejino wasaaradda waxbarashada gaar ahaan kulliyadda tababarka macallimiinta 2 bas oo aan ka iibinay mashruuca GBE Global Partnership for Education oo kamid ah mashaariicda ay wada hay'adda Save Children ee ay kala shaqeyso wasaaradda waxbarashada looguna talagalay in tayada iyo nidaamka waxbarashada Soomaaliya lagu caawiyo 2 bas ee aan maanta wareejinaynaa ma aha markii ugu horeysay aanu kulliyadda wax ku tarno dhismaha kulliyadda dabcan Save Children qayb weyn ka soo qaadatay lacagtii ku baxday kulliyadda qayb kamid ah waxa laga bixiyay mashruuc horumarinta cilmiga la yiraahdo oo hay'adda Save Children ay waday oo dhaqaalihiisa uu bixiyay midowga Yurub
qalabayntii kuliyadda laftirkeeda waxaa laga bixiyay mashruucan GPE tababarka macallimiinta ku jira hadda ee 400 macallin iyo 400 kale ee soo gali doona iyo 200 macallin oo kale oo horumarinta cilmiga ka soo gali doona intaas waxay ka mid yihiin mashruucan GPE iyo horumarinta cilmiga labada mashruuc ay wada Save the Children waxay ugu tala gashay inay wax kaga qabato waxbarashada Soomaaliland hay'adda Save the Children waxay in badan ka shaqeynaysaa Soomaaliland waxay ahayd hay'adii ugu horeeyay dalkii markii laga soo noqday dagaalkii sokeeye ilaa beriga ilaa hadda waxay door muhiim ah ka qaadatay waxbarashada Soomaaliland hadday tahay dhisitaanka iskuulada dalka oo dhan guud ahaan dayactirka iskuulada tababarka macallimiinta taabacada manaahijta iyo imtixaanaadkaba sida ka muuqata magacayaga waxaan u joognaa anaga caruurta wax ka qaban hadday tahay waxbarashadooda daryeelkooda caafimaadkooda waxbarashaduna waa muhiim qayb muhiim ah ayay ka qayb ka tahay labadan bas waxay qayb ka yihiin marka gaadiidka kuliyadda lagu talagalay inay adeega macallimiinta la tababarayo ay ka soo qaadaan magaalada ay soo gaarsiiyaan kuliyadda ay qayb ka yihiin maadaama kuliyaddu markaa aanay lahayn meeshii hoyga ahayd la seexanayay waxaad la socotaan in madaxweynuhu markaa kuliyadda bixiyay dhulkii lagu ballaarin lahaa oo ilaa qaybtaa sheelaa boorta madaxweynuhu markaa kordhiyey dhowaanna markaa mashruucan GPE-ga laga dhisi doono sanadka dambe horaantiisa dhismayaashii macallimiintu seexan lahaayeen imika tababarkii 400 macallin socday waxaa lagu sii wadaa dugsiyada magaalada qayb ka mid ah oo dugsiga Sheekh Bashiir ujeedadana waxay tahay markaa meel ardaydu soo wada gaari karta macallimiintu in tababarka lagu sameeyo tababarada qayb ka midna kuliyadda ka socdaan oo ardaydu marba halkan la keenaa insha Allah qorshaha waxa ku jira kuliyadda la balaariyo oo kalaasada dhiman ardayda la dhamaystiro qaybaha xafiiska la dhamaystiro waxaan aad ugu mahadnaqaynaa markaa mashruuca GPE-ga deeq bixiyayaasha iyo midowga Yurub iyo hadda Save the Children oo nagala shaqeysa sidii mashruucaas loo hirgelin lahaa ujeedada waxaynu ka leenahay ubadka waxbarashadooda oo ah markaa inaynu tayada waxbarashada kor soo qaadno ubadkeenu noqdaan markaa ubad la tartami kara wadamada jaarka inay kuliyaddan hirgelin doonto insha Allah taala 400 ku jirta waxaa kaloo dhawaan soo geli doona markaa macallimiinta pre service ka ahayd ee arday macallimiinta wali iskuulada iyagu waxba ka dhigin oo laakiin macallimiin doonayeen inay tababarkii macallimiinta qaataan ayaa 220 macallin baa bilaabi doona dhawaan waxaan kaloo markaa aan kuliyaddu tababari doontaa maamulayaasha dalka oo Hargeysa lagu bilaabi doono bishan waayo maamulku halka iskuulku markaa uu ka bilaabmo tayeynta iskuulku maamulayaasha gobolada kale ku xigayaan degdeg baagana lagu bilaabayaa sanad dugsiyeedkii cusbaaba insha Allah furmi doono dhawaan bisha dambe wasaaraddu markaa wasiirka wasaaradda mudane Cismaan hogaaminayo maalmaha oo dhan iyo wiigaga shirraba socday waxaan kor u qaadanaa markaa tirada ardayda ee la qaadanaya sanadkan baanu 30,000 arday ku dar doonaa intii sanadka hore la qaatay wacyigelin fara badan baa loo baahan la sameeyo waxaa kaloo jira markaa dardargelin iskuulada haddii xagga nadaafadda tahay iyo haddii xagga maamulka tahay markaa wasaaraddu ku talaabsan doonto waxaasoo dhan markaa waxaa loo sameynayaa in la fuliyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah in tayada waxbarashada kor loo soo qaado aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha oo runtii waxbarashada aad u danaynaya iyo wasaaradda maaliyadda lafteeda oo idina markaa waxbarashada u dhaga nugul waxaan kaloo mahadnaqaynaa hay'adaha nala shaqeeya ee wasaaradda markaa kala shaqeeya waxbarashada sanadkan anagu tayada waxbarashada aan culays ka saaray sanad dugsiyeedkan cusubna sanadkan 2019 kuma ka mid yahay tayadii baa la sii wadaya markaa insha Allah